diyaarahay oo waa sameynaya wixii safarka waa joojinaya waa joogsan karaa aniga dantida waa garanaya marka wax qabanaya waa garanaya waxa la sameeyo horta fiiri listen horta ma joogtaa Kenya ma soo laabatay Kenya Kenya way joogaan Nairobi aad kugu dhaw waliba goorme okay aniga diyaar ahay goorme hadda diyaar tahay brother ilka aska daadinaani aad wax aniga keligayga miya mise labada nin way kala cabsanayaan 5 bilood 6 bilood ayaa laga joogaa markii dhahayeen dagaalan sameynaynaa oo midkeena midkii ayaa la arki doonaa ragnimadooda ku tartamayeen ilaa haddana waxay noqdeen ciyaalka dugsiga booto waxaa loo daayay ciyaal dugsi booto waan ku tumaya waan ku qaraacaya jidka saacadda isu istaag ciyaal dugsi ayaa ugu dambeysay labadan laakiin weli ilaa maantadan way isku booteynayaan internetka isku booteynayaan maalin hore life ay soo galeen drisle ayaa waxaa weydiiyey rashka boy waryaa maad soo baxdeed maxaad isku qarinaysaa rashka boyna wuxuu ku dhahay drisle cabdi soo bax waan ku sugu la'yahay weli ma Kenya joogtaa dadkan waxay la tahay afka ayay ka booteynayaan maalin hore drisle Kenya markuu imaanayay waa kii la dhahayay rashka boy ayay dagaal rabaan oo boxing ayay rabaan inay keenaan YouTube Soomaali laakiin ilaa maantadan wax la iska qaaday ma laha drisle cabdi ma waxay ka tahay fuliynimo oo ma dagaali karo dumarka la cabsanayo waan arag oo waan arkay laakiin rag kala cabsanayo weligii ma arag ee waa ceeb ninka ragga ah hadduu ballanta qaado wuu oofin jiray drisle maxaa qawoojiyey ani waxay ila ahayd rashka boy jim walba Nairobi joogto wuu galay jim walba oo Nairobi ku taalo wuu galay wuxuu noo dhahay YouTube boxing rashka boy ayaa loo daan doonaa drisle habli waa aaminay drisle dadkii aaminay ayaan ku jiray laakiin meeshan waxaan arkaa nin cabsanayo nin dagaal aqoonin dagaalka ma fiicno laakiin mar walba in la isku bootay internetka waxna la iska qaadin ayaa ceeb ah midan kale dagaalkan dagaal ma aho oo cudud la isku qaadayo ma aho waxaa entertainment waaye waxaa la fiirinayaa dadka talent leh oo dagaali karaan ragga way isku booteeyeen wax way iska qaadi la'yihiin dumarkiina maxaan dhahaynaa aniga drisle waan aaminsanaa sababta waxaa loo ogyahay inuu yahay qof aamusan oo hadlin libaaxa midka aamusan iyo midka ka qayliyo midka aamusan ayaa laga cabsadaa midka aamusan ayaa sharci ani waxaan u aaminsanaa nin haddii lala hadlo dhinaciisa lasoo fiiriyo dadka inuu goosaha dhulka dhigayo laakiin maanta waxaan ogaaday drisle inuu asaga fulay kala ahay bilooyin ayuu rashka ku raadinayay sanado badan ayuu ku raadinayay ilaa maantadan dagaalkii aaway entertainmentkii aan noo soo wadeen boxingka aaway intuu galay ragga jaceyl markuu ku dhaco mise jaceyl ku dhaco daciif ayay noqdaan ma dumarka noloshooda ka jira ayaa ku beeray xanuunkan fulaynimada ah maxaa wadnahooda biib ka dhigay ani waan jeclahay dagaalka ma hele si xuma ii fahmin ani waxaa la yaabo leh mar walba waxay dhahayaan dagaalan soo wadnaa waa istumaynaa boxland bilaabaynaa ilaa maantadana wax la sameeyey ma laho drisle af Soomaaliya wadaa rashka boy af Soomaaliya wadaa nimankii hore ajaanibta ballanta qaadeen dagaalka way sameeyeen oo ballantii way ka soo baxeen lacagihii waa la kala qaybsaday ee Soomaalida maxaa lagu dhacay dad badan oo talent la jira boxing haddii arkaan raggan caanka ah sameynayaan boxingka ayagana way bilaabayaan oo way ku dayanayaan oo dad talent leh ala helaya shaqooyin ka fikir maanta
haddii la keeno boxing meeqaa qof ayaa shaqo u qormanaysaa, meeqaa qof ayaa bariiskooda ka helayaan, ee raggan mar walba afka ka botoonayo oona wixii samaynaynin maxaa laga aaminaa. hadda daraad tiktok dhexdiisa live ayay isku booteeyeen, ay dheheen waan dagaali karnaa oo waan murmi karnaa oo wax walba ayaan samayn karnaa. adi intee joogtaa, weli Kenya ma ka baxda? beentiisana wuu ogyahay Drizzle inuu Kenya joogo uu ka bixin. qof walba wuu ogyahay Drizzle inuu joogo, laakiin waxaa waaye nimankii ayaa kala cabsanaya. mar cabsina hadday imaato, hal mar hataa cabsi hadday imaato, waxaa ogaataa meesha shaqo ma bilaabanayso oo shaqo ma dhacayso oo waxan dhan ay noo wadaan waa iska af Soomaali. war ragga markii hore waxaa loo yaqaanaa niman ballanta oofiyaan oo dhahayaan saacadaas aan isla kulanno, dadkina way daawanayaan, internetka iskama soo caayaan. marageena maanta internetka ayaa la iska caynaya, waa la kala harayaa. haddiina rabin dagaal kala aamusa, haddiina rabtiin dagaal ee maalintaas iyo maalintaas ayaa aadaynaa dhaha. sababta ballan ayaa ka qaadeen, dad badan ayaa nigu ka fikiray oo nigu talagalay. dad qaar ayaa jiimka aaday, dad qaar ayaa safar soo galeen sifay dagaalka u fiirsadaan. Drizzle Kenya ayuu imaaday, Kenyana markuu imaado ilaa xadadan dagaal wax u wada ma laho. mar walba jecel ayuu noo hayaa leh, waa jecel. kala cabsida iyo fulinimada maxaa waaye? rashka boy boxing kama baxo, haween iyo maalin boxing ayuu dhex fadhiyaa. wuxuuna dhahay dagaalka aniga waan garanayaa oo dagaalka inta nooca arabto Drizzle ayaan kula dagaalaya. ilaa xadadanna waa af Soomaali. rashka ilaa maantadan ma arag qof uu afka ka daadiyey. maalin walba waa booto, everyday waa booto. bootadan maana laga dhaafo oo sida raggii hore dagaalka mala aado. ma kala cabsanaysiin? haa, waan kala cabsanaynaa. internetka iska caynina. rag waaweyn oo internetka iska caynaya maxaa waaye? dagaal real hadday tahay waa soo baxaysaa. dagaal maxaa lagu yaqaanaa? although waxaan waa entertainment oo ciyaartami, dadkii ayaa ka dhexwaalaysiin, dambi ayaa keenaysiin. waxaa dhahdeen waan dagaalami karnaa, waxaa dhahdeen waan awoodnaa maanta inaan sameyno boxing. ilaa haddana waxaan arag ma laho. dagaalka ma soo wadiin oo ballanti boxingka Soomaaliya ma la sameyn doonaa mise waa iska entertainment oo been iyo kala cabsi waa sheekada.